qaybtan ayaan uga hadlayaa walaalayaal qofka muslimka waxa laga doonayo inuu baaraa tafakkur ku sameeyaa fahmaa si uu ula jaan qaado noloshaani daciifka ah ee aan ku noolnahay waqtigan yar sanadadan yar ee aan noolaanayno sidoo ugu noolaa qanaaca ugu noolaada fahan ugu noolaada aqli iyo cilmi iyo xirfad ugu noolaada iyo الله كعبسي إيه توفيق إلهي جل وعلا وقولنا هذا وحبها إن أفهمها امتحانك حقيقة أو صح ذا وحلو بهنيها إن أفهمها امتحانك حقيقي أو صح ذا إن أفهمها هو الحب يا الله في داخل. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال مالو البادوكا كجوبتان كسو هذا برنامج كيني كدا BKD باروك ودقن دين هذا ولا ليال حلقة ذينا وحلقة دي سديدات إن شاء الله الحلقة ذا سديدات أيان وقهل لي دونا أرين آدي مهمة قفل بو بالآدن إنسان مسلم عاقل وإسوي ديني وحاكسو هالله حلقة دي لحاد حلقة دي تضبات امتحانك وحوية وان سوقي حي امتحانات كأدون كان بالآدن كلو امتحانو قيبيه سكال الدوان وانسكسو هالله قابب كيسا وانكسو هالله قيحيديسا وانكسو هالله waxaana ogsoonahay qof walbo idagaysan doono hansanan yahay ama og yahay in imtixaanka uu jiro laakiin su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay qeexida imtixaanka iyo fahanka imtixaanka iyo ogolaanshada imtixaanka iyo isudulaynta iyo sabarka imtixaanka ayaa lagu kala duwan yahay walaalayaal waxaan rabaa barnaamijkani inuu inoo noqdaa barnaamij nolosheena waxyaalo badan ka bedela sidii dhalinyaro badan walaalo badan ii soo sheegeen haddaba inuu noloshooda waxyaalo badan ka bedelay muhiimaddan waa saas adduunkan waxa u joogna ayaa waxay tahay maalinba maalinta ku xigto inaan isbedelnaa aan isku bedelnaa si wanaagsan si aanan hadhootii uga qoomamaynin si aanan hadhootii uga shalaynin si aanan hadhow u eedeynin qof kale ee aan aniga keli isku eedeeyo isbedelka nolosha bilaadanku ayaa wuxuu yahay shay qaali ah walaalayaal qaybtan ayaan uga hadlayaa walaalayaal qofka muslimka waxa laga doonayo inuu baaraa tafakkur ku sameeyaa fahmaa si uu ula jaan qaado noloshaani daciifka ah ee aan ku noolnahay waqtigan yar sanadadan yar ee aan noolaanayno sidoo ugu noolaa qanaaca ugu noolaada فهم وقولنا هذا عقل علمي حرفة وقولنا هذا إيه الله كعبسي إيه توفيق إلهي جل وعلا وقولنا هذا وحبها إن أفهمها امتحانك حقيقة أو صح ذا وحلو بهنيها إن أفهمها امتحانك حقيقي أو صح ذا إن أفهمها متكمل أولك يجا إلالي متكمل أولك حاجة يجدي midka laga sheegto xagga iga dhig midka bil aadanka ay dareensan yihiin biduuni cilmi wa biduuni aqli wa biduuni diin meel iga dhig laakiin waxaan ka hadlayaa imtixaanka diinteena islaamka ah ay nafarayso ee nagu ilaahi jalla wa ala nagu imtixaanayo aan ku noolaanayna adduunkan aakhirana aan ka helayno ama ciqaab ama jazaa أما أبالمرين أما عقاب أو كهيلينو لأجل امتحان كان أدون كان لغو امتحاني وانكسوها الله ولا ليال فهنك إلهي جل وعلا فهنك نبينا محمد عليه أفضل السلام وأزكى التسنيم فهنك دينتين إسلام كأه يدعى مهمة أيليذا هاي حلقة ذي وجودا بيسي حلقة ذي لحاد تضبطنا أو قصوها الله امتحان كوحو يهي كنا وحا وقها الله يا فهنك امتحانك ضدك ugu imtixaanka badan ama ugu imtixaanka adag si qanaaca aan ku helna
si tuma'niina aan ku helnaa si deganaansho aan ku helnaa si aan ula jaan qaadnaa imtixaan nolol maalmeedkan aan ku jirno si aan ula jaan qaadnaa maxaa yeelay walaalayaal haddaad ogaataa dadka ugu imtixaanka badan waddaday mareen sababta loo imtixaanay sababta waddadaasi loo marsiiyey waxaad noqonaysaa mid ka taxadira waxyaalaha qaar suusan ugu dhicin saysan uga dhicin imtixaanaadka saxda iyo midka qaladka ah saysan iskugu darsoomin suu u fahmo ama siday u fahanto dadkaasi sababta loo ciqaabay ama loo imtixaanay sidaad ogsoontihiin walaalayaal imtixaanka adduunkan waa yar yahay midka aakhiro ayaa ka badan ayaa ka culus ayaa ka adag su'aalaha aan isweydiin doono oo xalaqadeena maanta aan uga hadli doono ayaa wuxuu noqonayaa walaalayaal ilaahi jalla wacala haydin xifdiye yaa ugu imtixaan badan ama yaa ugu imtixaan adag fahanka imtixaanka saxda ah oo xaqiiqiga ah fahanka sababta lagu imtixaanayo inaad fahantaa waxay u baahan tahay xataa fahan iyo caqli iyo diin ayay u baahan tahay iyo qaabka looga badbaadaa imtixaanadaasi koo walaalayaal waxaan soo qaadanaynaa ilaahi jalla wacala khaaliqu samaawaati waalard asaga weeyaan waxaana imtixaanaya taas waa inaa ogaataa kow labo nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay axaadiid badana ka soo aroortay laakiin kowda waxaan rabaa inaan idiin soo akhriyo ilaahi jalla wacala aayadihiisa iyo siduu bilaadankiisa u kala imtixaano ilaahi jalla wacala wuxuu imtixaanay abuuna aadam calayhi afdalu salaami wa aska tasniim abuuna aadam calayhi salaam ayuu imtixaanay oo wuxuu ku imtixaanay asoo jannada ku jiro ayaa waxaa lagu yidhi وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إلهي جل وعلا وحكو امتحان جيت كسعوننا أذيك يا حواء جيت كسعوننا ويعونين امتحان كاس مركا امتحان كي أقوه قف وناكسن لامتحان أو بن آدم أها وحأقوه أبونا آدم عليه أفضل السلام وأزكى التسنيم مركو جيت كي عوني أو شيطان كي كو وسواسيين أو جيت كي عونا إلهي جل وعلا أصاق إيا شيطان كي حوابا وحلوير أدا دقا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون شيطانك على كل حال أبونا آدم عليه السلام دولك أيا لو سو ديري دولك أيا لو سو دجيجي سيدا درتين waxaan meeshaasi ka fahmi doonaa iyo axaadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay idin aqrin doono ilaahi jalla wa ala dadku imtixaana waxa ugu adag anbiyada waan arki doonaa xadiis saxiix ah oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam inoo sheegayo aan aqrin doono ilaahi jalla wa ala dadka wanaagsan muxuu imtixaana dadka wanaagsan muxuu ugu adkeeyaa imtixaanka waxa daliil inoo noqonayo qawluhu jalla wa ala إلهي قرآن كسوح يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ما دام أنبياء أي علوستها امتحانات كودا دتك لها مالا دتك للصعدة دتك لحرير أي دو أيو الله جل وعلا نوغا ورميا فضلك أوسيي درجة أوسيي وناغا أوسيي فضلك أوسيي يا شرفت أوسيي أيا وحو كل يهي نبيغا حاسسكيس أيا لك هالليا مدكين لي ماذا فاحشة دنبي فاحشة وإذن كإذن كمد
فاحشة سو مبينة أو عد يضاعف لها العذاب ضعفين. عذابك يعني عقابك أيان إذين لبلا بين أيو يري الله جل وعلا. محايا لي إلهي جل وعلا وفضلي درجة أيوسيي نبينا صلى الله عليه وسلم أو معصوم أيا للحريري أيا حاسس لو قدقي سيدسو إلهي وحو يري من كي لي ماذا فاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. عذابك أيان الله بالله بينا إلهي جل وعلا آيات كلا نحو كل يهي وناقع سميسان وإذين لبالله بيا أو درجوين فربضا أو وين أو ما أركتي فضل الله أيان إذن سينيا. قرآنك مركا وحان كفهمينا امتحانك دادك أغو أذك سؤاشا كواد أغو بضن أيا وحو يهي دادك إلهي جل وعلا وجعل يهي وأنبيادا أغو كوغيهين إيا دادك ونوناكسن وصالحين تأه دادك يا أغو ابتلا بضن أو يا أغو امتحان بضن ولقى الله مسكح هذا ما جلسي مكو فكرتي يعني مسكدا دعسي أديكو امتحان دريميو أديكو امتحان لغو امتحانيو أدونك لغو امتحانيو